markastaba warka waxaad u leedihiin xaq baad u leedihiin in aad heshaan wareysi oo cid ugu sareyso gobolkan hadday noqoto gudoomiyaha hadday noqoto gudoomiyaha degmada hadday noqoto ku-xigeenka hadday noqoto maayarka magaalada cidda aan shaqadeeda tusayno maahan inaan dhibaato ku wadno maahan inaan ku xadgudbayno ama shaqada waxay ku imaan kartaa inay tahay mid laga gaabiyey iyo mid la arki waayey labadaba waxaan rabnaa marka waxyaabo badan magaalada ka jira in ay gaabiyeen shaqadii ka dhaxaysay wariyaasha iyo maamulka hadda waxaad arkaysaa mas'uul ama dawladeed oo isku soo duubayo iPhone ama mobilada touchka ah balse waxa kula shaqeynaa sifada sharciga ee wariinimo uu leeyahay ma kula shaqeynayna inaga markii anaga wax qabano soo sheega markii wax qaldiin anaga mas'uuliyadda ay gabnana aamus kulama shaqeynayno dhalinyartii horaan la qabaa warkan fariintii ku gudbiyeen ee ah isku xirka maamulka iyo wariyaasha taa inay naga gudbido oo rajaynaynaa maanta waxaa kulan isugu yimid wariyaasha madaxa bannaan iyo sidoo kale kuwa ka howlgalo warbaahinada magaalada iyo sidoo kale telefishinada caalamiga ah kulankan waxa uu daarnaa soo dhaweynta amaba waxa uu daarnaa soo dhaweynta isku duwaha wacyigelinta iyo sidoo kale hanuuninta dadweynaha ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle Abwaan Dhamac oo aad loo garan og yahay magaalada Beledweyne iyo sidoo kale qaybo badan oo ka tirsan dalka kulankan waxa sidoo kale ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in uu maadaama uu ka tirsanaa bahda saxaafadda in wariyaasha la kulmo wariyaashuna waxay inta badan aanu gudbino ka hadalnay hal qodob ugu muhiimsanaa oo ahaa inuu xun yahay linkiga u dhaxeeyo maadaama uu asiga ka joogo hadda maamulka wasaaradda warfaafinta magaceedana nugula joogo isku xirka u dhaxeeyo maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale wariyaasha madaxa bannaan iyo sidoo kale kuwa telefishinada caalamiga ah ka shaqeeyo waa la wadaagnay waxaan rajaynaynaa in warkeena qaadi doono si ay maamulkuna ay doorkooda u gartaan wariyaashana xuquuqdooda loo ogaado waxa ay ka shaqeynayaan inta badan waa inay bulshada u adeegaan ama ay bulshada u shaqeeyaan soo dhow baan halka annaga naga imaatay annaga hadana nagu soo laabatay maadaama madax noo tahay waxaan kugu la shaqeyn doonaa wadada saxda ah ee saxaafadda kulli laga shaqeeyma wax badan ka taqaana fariin kale tan oo ku gudbinaynaa oo ah mas'uuliyiintu waxa la rabaa inay gartaan doorkooda annagu marka waxa gudbinayno waxa u hadlaynaa bulshada cidda aan shaqadeeda tusayno maahan inaan dhibaato ku wadno maahan inaan ku xadgudbayno ama shaqada waxay ku imaan kartaa inay tahay mid laga gaabiyey iyo mid la arki waayey labadaba waxaan rabnaa marka waxyaabo badan magaalada ka jira mar raba inaad si dhex galo in arintaas qaado maadaama mas'uuliyiinta adiga aad la kulmayso oo aad ka dhaadhiciso soo dhawaan ku leenahay wariyaasha magaalada Beledweyne waana liiga dambeyn doonaa waxay diyaar u yihiin inay kula shaqeeyaan in aad qaabkii hore aad wax ka bedesho maadaama aan ogahay inaad tahay nin aad ugu firfircoon hawsha loo idmaday waan ugu soo dhaweynaynaa soo dhawow maamulkana waxaan rajaynaynaa maadaama mas'uul cusub la keenay in shaqadii wada shaqeyntii maamulka iyo wariyaashii Beledweyne oo gaab ku jirto oo sidii loo baahnaa aan loo shaqeynin maadaama gobolkan dhowr maamul ama dhowr mas'uul ay soo mareen maamulada ugu dambeeyay gobolkan loo soo magacaabo ilaa laba gudoomiye in ay gaabiyeen shaqadii ka dhaxaysay wariyaasha iyo maamulka hadda waxaad arkaysaa mas'uul ama dawladeed oo isku soo duubayo iPhone ama mobilada touchka ah taas oo markaasi qadka ka bixisay doorkiisa xaafadda saaxiibkay Dhamac nin suugaanyahan ah wariye hore rogcada ah saaxiib marka hore hambaliyo xilka loogu magacaabay soo dhow marka xigto waxaan wariyaasha magaalada ka howlgalay oo inta badan magaaladan hadii qurxantana soo bandhigay hadii fool xuntana soo bandhigay xaqiiqada dhabta ay ka jirta magaaladan cid walba maanta reer Hiiraan ama reer Beledweyne way ogtahay war tiradiisa saaxiibadii iga horeeya sheegay kaliya waxa rabaa inaan hal eray ku daro ama hal qodob ku daro kaasoo ah dhammaan wariyaasha meeshan galabta fadhiyo waxay diyaar u yihiin la shaqeynta maamulka haddii heer gobol heer degmo iyo dawladda hoose intaba
balse waxaan kula shaqaynaynaa sifada sharciga ee wariinimo uu leeyahay ma kula shaqaynaynaa innaga markii anaga wax qabano na soo sheega markii wax qaldayn anaga mas'uuliyadda ay gabnana aamus kulama shaqaynayno ceeb aan raadiya caay sidoo kale ammaane meelna kama soo gashay saxaafadda saxda kaliya markii wax qabatiin oo shaqadii leedahay igmada ka soo baxdaan waa idin baahinayna waa idin sheegayna inaad bulshada u adeegteen markii aad showshina gabtaan ama wixii leedahay igmada qabaysaan waxaan sheegaynaa ama soo bandhigaynaa inaad shaqadiina qabayseen bismillaahi raxmaani raxiim kulankan oo galabta isku yeeray suduwaha wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle wasaaradda faafinta waa soo dhaweynaynaa agaasime soo dhawow marka hore waa ku hambalyeynayna marka labaad war badan anigu ma qabo dhalinyartii hore aan la qabaa warkan fariintii ku gudbiyeen ee ah isku xirka maamulka iyo wariyaasha taa inay naga gudbido oo rajaynaynaa bismillaah halkan maanta waxaa iskugu yimid bahda wariyaasha ku sugan gobolka Hiiraan si gaar ah magaalada Beledweyne oo dabcan ka wada matalaya warbaahinada kala duwan ee caalamiga iyadoo isla markaana kulankan maanta uu iskugu yeeray isku dugaha wacyigelinta iyo sidoo kale hanuuninta saaxiibkayga markaasi dabcan wariye hore ahna hadda wariye abwaan dhamac oo dabcan si weyn loogu yaqaan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dabcan kulankeena maanta uu iskugu yeeray abwaanka waxa uu daaran yahay bahda wariyaasha ayuu iskugu yeeray si marka iyagana ay kala shaqeeyaan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo dabcan iyo isku xirka maamulka iyo wariyaasha oo dhib badan uu ka taagan yahay muddooyinka ugu dambeeyay halka wariyaasha gobolkan ku sugan looga baahan yahay maadaama halkan inta ugu badan ay joogaan wakiil wareedyo oo dabcan looga baahan yahay warar maadaama maamulkii uu hadlayo wariyihiina maalin walba la soo weydiinayo warar oo la leeyahay maamulku waa hadlay warkaas ma haysa dabcan waxa uu wariyaasha halkan ay ka codsadeen marka abwaan dhamac in markaasi dabcan isaga iyo wariyaasha dabcan inuu istuso maamulkii oo kala hadlaan marka waxa haysta wariyaasha maadaama wariyaasha halkan jooga ay u badan yihiin wakiil wareedyo mahadsantihiin dhalintii foolaadku ahayd saxaafadda maanta ee Beledweyne oo ay hor fadhiyaan horta aad iyo aad ugu mahadsantihiin markaan iraahdo goosaaro agteeda ka muuqdo oo rag aad uga afdheeray kamida Cosoble Liibaan masha Allah Cabdiyare aad iyo aad waxaan isleeyahay iyo Baryare banarkaya waa si isu dhaweysay ayaan iguna idin soo dhaweynaya rag saaxiibada baa tiino aniguna nin oday oo muddo dheer saxaafadda ka soo shaqeynay wali magaalada Beledweyne ayaan ahaa oo in badan u soo joogay wax waa qor isku dhiib marka waxa la yiraahdaa saxaafaddu wariinimadu waa amaano warka lagu soo dhiibay markaad meel aad ka soo qaado de ma barxi kartid waa inaad sidiis u gudbisid sida caadiga wariyaha mid laga rabo waa midaas wariyaha waxa kale oo looga baahan yahay in uu helo xogta markuu inuu xaqiiq inuu si helo aad iyo aad looga baahan yahay waxa kale oo isaga u baahan yahay in goobta uu joogo goobta war uu ka rabo inuu helo cid uu yimaado markaas meel uu yimaado markuu u sheego uu yiraahdo meeshaas waxaan ka doonayaa warka noocaas ama ninka halka joogay hebel aan doonay inaan wareysi ka qaado xaq wuxuu u leeyahay inuu wareysigiis uu helo goorta ahaato wareysigiis uu helo uu weydiiyo yiraahdo xilligaas ayaan doonay inaan wareysi ka helo loo ballamiyo mar uu markaas wareysi uu qaado marka qofka kalena xaq wuxuu u leeyahay inuu weydiiyo wareysiga uu ka qaaday micnaha waxa uu ka wareysanayo goorta uu baxayo iyo goobta uu ka baxayo علشان تيفيق إذا عدى ورقيسك iyo goorta uu soo baxay